عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي xiisa daawadayaal idil hantiinba meel walba aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan warka telefishinka caalamiga SBC wuxuu idinkaga imaanayaa xarunta labaad oo TV-ga ku leeyahay magaalada Muqdisho qodobada warka kuwooda ugu door korona waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo furay shirka dhalinyarada ee ka furmay magaalada Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo mas'uuliyad darro ku tilmaamay leerarkii ku xirnaa magaalada Garowe ee cadceed ku shaqeyn jiray oo qaarkood damay wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Muqdisho ka daafurtay kula lagu diyaarinayo istaraatiijiyadda waxbarashada iyo la tashiga dadweynaha ee arrimaha bulshada madaxa hay'adda qaramada midoobay UNHCR oo booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho wariye Maxamed Aweys uday boqorka bartamaha oo dib u helay xuriyadiisii kadib muddo 4 sano oo ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya isku soo noqod wanaagsan warkii oo fidsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa furay shirka dhalinyarada ee Muqdisho ka furmay warbixinta warkan waxa Muqdisho loogu diyaariyay wariyaheen shirweynaha qaran ee siyaasadda dhalinyarada waxa sanadkii labaad qabanaysa dawladda federaalka Soomaaliya shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka u qaabilsanaha qaramada midoobay ee arrimaha dhalinyarada iyo inta badan ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye oo khudbad ka jeedisay furitaanka shirka ayaa sheegtay in shirweynahan qaran ee lagu dejinayo siyaasadda dhalinyarada wax badan ka bedeli doono dhibaatooyinka faraha badan ee haysta dhalinyarada Soomaaliyeed sidee dhalinyaradu uga qayb qaadan karaan ka qaybgalka siyaasadda dalka saddex sidee looga hortagi karaa dhibaatooyinka tahriibka sidee dhalinyaradu uga qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka iyo ilaalinta bii'ada ama deegaanka sidee dhalinyaradu shaqo abuur loogu sameyn karaa hadday ku nool yihiin magaalooyinka dowlad goboleedyada iyo miyiga fog intaba haddii Allah wada loo ogolaado sidee dhalinyarada looga badbaadin karaa xagjirnimada waayo waa ay ku hofteen waliba ayagoo magacooda la huwan yahay arxan laawayaal qaatay ismul cadiim oo ah shabaab Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo si rasmi ah shirka u furay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka maadaama ay dhalinyaradu yihiin tirada ugu badan ee mujtamaca Soomaaliyeed laakiin waa idinka oo la idinka rabo inaad keentaan xalki cidda ka qayb qaadan karta heshiiska ama dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo dhigi karta in ummadda Soomaaliyeed dib la isugu keeno la heshiisiyo oo dhihi doonta maya ma ogolin khilaafkii aan soo dhaafnay 27 sano la soo dhaafay ma ahan kuwa khilaafka keenay ee waa idinka khilaafka waxa keenay kuwa idinka horeeyay oo aniga Khadiija aan ka midnahay kuwa idinka waaweyn oo aad xaqeedu ugu lahaydeen inay gacanta idin soo geliyaan dal iyo dawlad ka duwan maanta inteenan qaybta ka ahayd khilaafkaas haddii aad u fadhidaan inaad ka sugtaan inay xalka iyaga keligood noqdaan iyagoo keliya 25% ka ah bulshada Soomaaliyeed idinkuna aad ka tihiin 75 haddii aad xal ka sugtaan oo aad indhaha ka qabsataan fursadda dalkiina iyo dalkiina madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa mas'uuliyad darro ku tilmaamay leerarkii ku xirnaa magaalada Garowe ee cadceed ku shaqeyn jiray oo qaarkood damay warbixinta warkan waxa eegaya wariyaheena Maxamed baalayaasha ay ku xiran yihiin leerarka cadceedda ku shaqeeya waxay magaalo kasta ka saacidaan soo saaridda bilicdeeda iyo horumarka dhanka ganacsiga
halkani waa wadada Soddonka ee magaalada Garowe waana jidka kaliya ee isku xira laamiyada dhexmara magaaladan waxaa ku xiran leerarka cadceedda ku shaqeeya oo hadda ka hor ifi jiray dhamaantood balse hadda badankood waa ay dinsan yihiin sababtana haddaad weydiiso mas'uul kasta iyo muwaadiniinta ku nool magaaladan waa ay adag tahay in ay kaaga jawaabaan xogayaha dawladda hoose Maxamuud Cali Guray oo aan qadka taleefanka kula xiriiray si aan wax uga weydiiyay arrimahan waxa uu ii sheegay in dhawaan xilkan loo dhiibay ayna adag tahay jawaabo ku filan in uu helo madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo khudbad ka jeedinayay munaasabad arrimaha booliska diiradda lagu saarayay ayaa soo hadal qaaday leerarka cadceedda ku shaqeeya ee magaalada ku xiran waxa uu hoosta ka xariiqay in mas'uuliyad darro ay qaadanayaan cidda arrimahooda ku shaqada leh hadda qalabkan solar systemka la xirayo isaga laftiisa waan arkay magaalooyinka waa wada maray solar power key waxa la yiri markii la train gareeyay lagu xirayay waxa kaliya u baahan tihiin shidaal idin kama baahna dayactir kale idin kama baahna wax kale idin kama baahna wixii idin ka baahan yahay markaad muddo yar joogtaanba harqad yar oo nadiif ah iyo biyo cad oo aad ku masaxdaan inta kaliya u baahan yahay waxa la yaaba waxa la oran jiray faraska biyaha tus laakiin ha ku qasbi inuu cabo waa eegaynay shan ku eegaynay magaalada waan maraa tan baan maraa kuwa kale markaan taga lafteeda waan sheegareeyaa alsaba nalal dhan oo iska dansan waxay u dansan yihiin trust me maaha cilad kale board baa fuulay wax boardkii ka qaaday weyn biraha ay ku xiran yihiin leerarkan jidka Soddonka ku taxan qaarkood baabuur ayaa jirtay oo meeshaba waa ay ka maqan yihiin mana jirto cid arrimahaasi loo soo qabtay ama wax iska weydiisay haddaba taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Garowe Dhame Maxamuud Muuse Bila Fardafuul oo aan weydiiyay cidda mas'uuliyadda leerarkan in ay ilaaliso iska leh waxa uu ku jawaabay beeta solarada waa sax waxa anaga naga waajib naga saaray amniga dhakasta solarada haday tahay bilcid magaalada waa inta degmada aanu anagu joogno inaanu dhakasta aan ku ilaalino waa wax waajib aan laga baahan yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Camay oo baaq u jeediyay mas'uuliyiinta dawladda ilaa degmo ilaa heer gobol waxa uu sheegay in aysan micno badan sameeynin xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa dacwad ku soo oogay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa dacwad ku soo oogay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka tobanaad ee Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay inay galeen fal dambiyeeda Dr. Axmed Cali Daahir ayaa faray hay'adaha sharciga fuliyaasha sida booliska iyo hoggaanka baarista dambiyada in wixii maanta ka dambeeya ay waajibaadkooda gudan karaan waxa uu sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay u gudbiyeen qoraal cadeynaya labadan xildhibaan oo galay fal dambiyeed waaweyn sida abaabul iyo sharci darro qaran dumis isla markaana cadeymahooda oo dhameystiran la hayo isagoo si hadlaya xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa dalbaday in xildhibaanada kale ah Xasan Macalin Maxamed iyo Cabdisaabir Nuur Nuuriye laga qaado xasaanada si sharciga loo horgeeyo waxaan shirkan jaraa'id isugu yeeray inaan la socodsiiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan hay'adaha la yiraahdo law enforcement-iga ama hay'adaha la yiraahdo sharci fuliyaalka oo ay ugu horeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xafiiska xiraalintu in ay badatay ku tumashada sharciga ee khaas ahaan mas'uuliyiinta qaranka noocay doontaan waxaan noqdaan sidaa darteed waxaan rabaa inaan iclaamino in laga bilaabo maanta waxaan dhammaan xafiiska xiraalinta iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada iyo hay'adaha ku shaqada leh oo dhan aan u jeedinayaa in ay qabsadaan waajibaadkooda shaqo ku aadan hirgelinta sareynta sharciga sidaa ogtiinba sharciga madaxa hay'adda qaramada midoobay UNHCR ayaa booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho
sida faahfaahinta warkan uu ku sii ambaqaadayo waryaheena. wafdigan uu hogaaminayay madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR Philippe Grandi ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Abdulqaadir Axmed Kheer wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Major Keating iyo mas'uuliyiin kale. wafdiga maanta yimid waxaa qayb ka ahaa Maxamed Cabdi Afi oo ah ergeyga gaarka ee UNHCR u qaabilsan Geeska Afrika. madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR Philippe Grandi ayaa ka madceliyay soo dhaweynta loo sameeyay waxaana uu sheegay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wada hadli doonaan sidii la isaga kaashan lahaa caawinta qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka ku soo noqonaya. Our main task of course has been for decades to support Somali. shaqooyinkeena ugu waaweyn waxaa qayb ka ah daryeelka qaxootiga Soomaaliyeed kuwa gudaha iyo dibadda ku nool oo aan caawinaynay 20 sano ee la soo dhaafay waana sii wada doonaa gargaarka aan u fidinayno. dhabtii waa garowsannahay in horumar laga gaaray dhanka nabadgelyada badqabkooda iyo daryeelkaba ee waddan kasta. marka waxaan rabaa in aan idinla wadaago fariintan. dabcan qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga nafsi ahaantooda ayay dalkooda dib ugu soo laabteen waana ka caawinay dhanka deegaanka iyo arrimaha bini'aadanimada waxaana arrintan kala kaashanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo aan ka wada hadli doono qorshe dhismo lagu sameynayo. waana mahadsantihiin. wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Abdulqaadir Axmed Kheer ayaa sheegay in madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR Philippe Grandi uu boqosho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho waxaana uu kulamo la qaadan doonaa buu yiri madaxda dalka. madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay High Commissioner Philippe Grandi oo boqosho rasmi ah ku yimid waddanka Soomaaliya anaga wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaaradda soo dhaweyn diiran iyo u sameeyay VIP commissionerka wuxuu joogi doonaa maanta iyo berri intuu joogana wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha iyo wasaaraha iyo wasiirada berrina wuxuu aanbabixi doonaa duleeraada Kismaayo si u booqdo xeryaha qaar dadkii ku soo noqday qaxootiga ku soo noqday waddanka. golaha deegaanka magaalada Berbera oo shir gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur Maxamed Xasan Ciidin ayaa maanta qabtay kalfadhigoodii 16aad kaasoo ay kaga hadlayeen qodobo ay ka mid yihiin sidii loo ansixin lahaa miisaaniyadda sanadka oo ay ku jirto adeegga bulshada sida biyaha, korontada iyo waxyaabaha la midka ah. kalfadhigan waxaa ka soo qayb galay 14 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka halkaasina waxaa warqad amuuraha si sheegaysa ka akhriyay xogayaha dawladda hoose Cabdikariin Aadan Cadde waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan wadooyinka rugaha caafimaadka rugaha nabadgelyada malcaamadaha iyo masaajidada iyo waxbarashada iyo dabcan biyaha oo iyana qayb aynu ka taaban doono hadduu ala dhado 2018 waxaa kale oo jira mashaariic ama shaqooyin badan oo aan halkan ku qornayn oo maxay tahay shaqooyin iska soconaya ah oo aan mashaariic waaweyn ahayn oo dawladda hoos qabato oo runtii maxay tahay iyana aynu deeso dulsaaro u qabanno. haddaan ugu horeysiiyo wadooyinka magaalada wardo tarmakrada barwaaqo iyana waxay sanadkan nasiib u heshay inaynu santarkeedii hore ee originalka ahaa in dib u dhis lagu sameeyo si oo waxna qaad u noqdaan adeegyada asaasiga ee xaafaduhu waxa wada ogtiin inaan ku raynay xaafadii Burcashiiq santarkii community santarkii Burcashiiq markii aan dhisnay adeegyo badan oo asaasiga ah baa ka fulay oo xafiisyo badan oo dawladda hoose adeegyada ay qabanaysaa ayaa ka fulay shirarka ugu ballaaran ku qabanaa xaafadda Daaroona waa la mid iyaduna marka santarkii hore originalka ahaa ayaynu dib u dhis ku sameyn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo si iyadana adeegyadeeda loogu guuriyo oo loogu raro. waxaa kaloo inoogu jira qorshaha miisaaniyadda sanadka 2018 oo runtii wax qabad ballaaran ay bulshadu ka heli doonto. halkan imika aynu joognaa waxa weeyaan waa xaruntii dawladda hoose markaynu eegno dhismayaasha iyo xafiisyadu dadka ka shaqeeya iyo xafiisyadu waxa badan dadka ka shaqeeya marka waxay u baahan tahay in la ballaariyo. waxaan ku ballaarin doonaa xafiisyadii qayb dambe oo weyn baynu u sameyn doonaa oo insha Allah taala sidii qaybtaha hore ugu nafisnay qayb kale aan dib u dhis ku sameyno iyo xafiisyada oo dib loo habeeyo
xafiisyada hore jiro dib loo habeeyo iyo ballaarin weyn oo xarun weyn oo gudaheeda laga sii sameeyo insha allahu tacaala. waxaa kaloo inoogu jira sanadka gaadi suuqyada waaweyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa isbedel weyn laga dareemaya kadib markii la xaliyay khilaafkii ka taagnaa dekedda Boosaaso. Axmed Maxamuud Axmed Nuune. xarunta ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ahayd mid ganacsigeedu isbedelayay isla markaasna ganacsatada kala duwan ay hayeen kuwa caqabado kala duwan la kulmayay kadib markii ay dawladda Puntland ee dekedda weyn ee magaalada Boosaaso ay ku wareejisay shirkad taasoo oo ay inta badan ka soo horjeesteen ganacsatada waaweyn ee deegaanada Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. hase haatee waxa ahayd muddo ay xirneyd dekeddu mid caqabad ku keentay bulshada iyo ganacsatadaba. kadib waxa ay taa u fariisay ismada Puntland oo xal ka keenay taasoo ah inay dekeddu dib u shaqeyso isla markaasna isla afgarteen maamulka iyo ganacsataduba in sida ugu habboon loogu shaqeeyo dekedda weyn ee magaalada Boosaaso. bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa furitaanka dib dekedda weyn ee magaalada Boosaaso waxay uga warbixinayaan habka u socda ganacsigooda iyo isbedelka ku yimi maalmo dhib badan ay soo mareen taasoo mudaharaadyo ay ka dhaceen gudaha magaalada Boosaaso. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وين السلام يا دمان عدة داوانيس مقعي عبد جرد عيسى وقدوميها كان حسيتها مقالة بوصاصو وحن اسبدلي وحبنا بيسبدلي في الناشي هو صدع بعد عي لكن فرناشي الحمد لله إلهي وحن كرجان إلهي نوسي هذه اسبدل وين بدأ وافعي قلعس وافعي دكدنا الحمد لله عقبة ويسكتشران لكن عاديات بوفي عنده bulshada bal maxaa ugu baaqi lahayd xilligani ee ku dhaqan deegaanada Puntland iyo waliba Boosaaso. bulshada waxaan ugu baaqi lahaa in Ilaahay ganacsiga u barakeeyo. waxaan ugu baaqi lahaa in nabadgelyada ilaashadaan. nabadgelyadu waa muhiim in nabadgelyada laga shaqeeyo in markaas ganacsigu hormaraya in wax barasho hadii la helayo wax barashada wax la barto in si fiican loo shaqeysto. ganacsi magacay Cabdixaafid Maxamed Nuur baa lahaa ganacsiyada waxa ka mid ahay magaalada Boosaaso shoobileyda ah dekedda markii la furay magaalada caadi bay noqotay. koor maxaa dhig jiray koor mar baa xirantay waxa socdo iyo waxa maanaha la kala gataa la garan waa waan gartay waxa sababay hirnaashadii dekedda sababay alxamdulillah suuq waa noo kala socda magaalada sideeda ay noqotay xaalad aad iyo aad bajow waa degan yahay hadda marka xigtana de saameyn weyn bay macnaha ay nagu yeelatay taasi oo ah ganacsigeeni oo hakaday sababaha jira mudaharaadkii iyo waxyaabihii socday awgood haddana alxamdulillah dekedii dib baa loo furay ganacsigeedana si caadi ah buu isu keenay. bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaam ala anbiyaa wal mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmaciin ama bacda aniga waxaana Yuusuf kuma Ciise la yiraahdaa waxaana ganacsada reer Puntland wallahi caqabada culus baa nagu soo kulmay xirnaanshaha dekedda xirnaad sababtoo waxa weeye suuqii wax laan baa dhacday dadkii waxa weeye ka xoogsan jiray dekedda ama dadkii wax kala soo degi jiray muddo dheer 12 cisho xirneed hadii anaga suuqley baan nahay dadkaas dadku waa isku nool yahay wax naga iibsan jiray dekedda dadka ka xamaala dadka wax kala soo dega hadii suuqii oo dhan waa naga xirmay waxa weeye wixii waa iska yaraadeen marka saasaan suuq la'aanta noo keentay inay dekedda naga xirmato. bal hadda waa la furay maxaa bal isbedel yimid wallahi hadda waa la furay hadda waxaad moodaa hadda wili ganacsigii suuqii ma soo wada gelin dooyin badan dekedda hadda yaalaan qaar baa la soo fasaxay waxna waa dhiman yihiin suuqana waa tilka ayaan beerinaas weyn walba calafkiisu ka qaaday laakiin suuqeen arki jirnay iyo wixii arki jirnay aroosada arki jirnay ma hayno ani matala hadda qalabka aroosada guryahan gadaa hadda saasay tahayna hadda wax is aroosayo ma hayno waxa weey arooskii waa yaraaday hadda maxaa dadkii dekedda wax kala soo degi jiray haddaan dekeddii waxba oolin ama ninkii ka xamaalin jiray xamaaligii uu ka yaraaday hadda waxa weey yaa aroosa wax aroosa ma leh xabad joodari xabad shumac iyo dadku alaabo yar ma ka iibsanayaan arooskii waa yaraa sida horena ma haddaan ka hadlo arinta dekedda horta dekedda saameyn bay nagu yeelatay intay xirnayd saameynta ku yeelatay waxaa yaraaday dhaqdhaqaaqi ganacsiga hadda waxaa moodaa intii la furay inuu ganacsigu aad u sii fiicnaanayo xagga dhaqaalaha maxaa yeelay dad badan baa dekedda ku tiirsanaa dekeddu ayaamay xirnayd wax kasta oo yimaada horta wada hadal bay iyo buuq iyo iska dhaliyaan shirkaddan hadda BB Wall oo timiyeen dekedda Puntland Boosaaso iyo shacabka waxaa adigu isfahan waa xogaa dhex maray waliba ganacsatada iyadana waa la xalilay isimada iyo siyaasiyiin iyo dad badan baa hawshaas galay si fiican baa loo xalilay waana soo dhaweynaynaa go'aanka isimada ka qaateen dekedda Boosaaso iyo shirkadda isafgaradkii dhex maray suuqa ayaamaha u xirnaa dawad dareemi kartaa kulba suuqu ugu yaraan waxaana ka adeegtaa suuqa Boosaaso bakaaraha Boosaaso ugu yaraan waxa ka adeegtaa ilaa iyo 18 gobol Puntland ilaa iyo beledweyne bay adeeg iyagu tagaa
marka dee intaas ayaamaha u xidhnaa wax badan ba dhowr maalmood baa laakiin isbedel uu dhacay. isbedelka ganacsiga waa mid saameyn ballaaran ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada haba ugu darnaantay in dekada Boosaaso xirnaa. gudoomiyaha dowladda aan dowliga ahayn ee Jubbaland ee Junsa ayaa sheegay in aan lagu casuumin hanaanka dib u eegista dastuurka ee ka furmay magaalada Muqdisho. warkan waxaa Kismaayo looga soo diray wariyahana halkaas inooga soo warama. shirkan jaraa'id ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo ku midaysan dalada loo yaqaan Junsa ayaa sheegay inay ka cabanayaan shirka dib u eegista caasimadda Soomaaliya maanta ka furmay kaas oo hogaaminaysa wasaaradda dastuurka ayna ka qayb galayaan dhammaan daladaha kala duwan ee maamul goboleedyada dalka oo ayna ka qayb galin dalada aan dawliga ahayn ee Jubbaland ee Junsa. gudoomiyaha dalada Jubbaland ee aan dawliga ahayn ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Junsa Maxamed Naasir Ahmed Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkan jaraa'id. meeshan maanta waxa iskugu yimid ururada bulshada rayidka dhamaantood oo ku midaysan dalada Junsa kadib markii ay ka waayeen inay qayb ka yihiin hanaanka dib u eegista dastuurka shirkaasi oo ka furmay magaalada Muqdisho. waxayna soo saareen war-saxaafadeedkan annagoo ah dalada bulshada rayidka Jubbaland ee Junsa waxaan si cad u qaadacnay shirka hanaanka dib u eegista dastuurka ee maanta oo taariikhdu ay tahay 17 December ka furmay magaalada madaxda Muqdisho maadaama aan wax tixgelin ah nala siin. waxaan si toos ah u cambaareynaa talaabada khaldan oo wasiirka cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta ee Jubbaland mudane aadan aw xirsi uu ku dudsiyay kaalintii ay lahaayeen bulshada rayidka. waxaan wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka guddiga labada aqal ee dastuurka iyo guddiga dastuurka ee madaxa bannaan ku wargelinayna in shacabka Jubbaland aysan aqbali karin waxa ka soo baxa aysan dhici karin in loo meeriyo wax ay soo dhodhoobeen shakhsiyaad ka been sheegaya rabitaanka bulshada Jubbaland. waxaan ugu dambeyn ugu baaqaynaa wasiirka aw xirsi in uu ka shaqeeyo horumarinta bulshada kana foojignaado jujuubka iyo gacan bidixaynta uu ku hayo bulshada. gaadiidka ayaa ku soo badanaya Hargeysa iyo ciriiriga wadooyinka haddaba sidoo markii ay xaalad degdeg ah dhacdo sida markii uu dabkaco. warbixinta warkan waxaa Hargeysa looga soo diray iyadoo sanadihii ugu dambeeyay gaadiidku ku soo badanayeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. taasi waxa ay sababtay ciriir dhanka wadooyinka ah waxayna waqti badan ku qaadanaysaa markii aad u socoto goobtaada shaqo ama goobaha waxbarashada. haddaba waa sidee markii ay dhacdo xaalad degdeg ah sida markii dabkaco ama markii uu jiro qof dhaawac oo dhakhtarka loo wado. arrimaha iyo arrimo kale waxaanu ka wareysanay taliyaha ciidanka taraafikada Somaliland Faysal Xiis Cilmi ahna afayeenka ciidanka booliska Somaliland. wadooyinka waa soo arko waa ciriiri inkastoo dowladda ay dalashay waa wadooyin samaysay haddana dowladdu waa ciriiri oo dawladda arkay baabuurta aad iyo aad badan ciidanka booliskuna dawladda inta wada arkay shaqeeyo. haddaan su'aal kale ku weydiiyo ka yar baxsan waxaa jira dad wadada geesaheeda dhigta gawaari sida kuwaan oo kaleeto oo wadada ciriir ku keenaya kuwaas bal ka waran tali. kuwaas waa khalad waa la ganaaxaya ganaaxa xaq u leeyihiin maaha inay habeen oo dhigtaan dadka gaaraha dadka laftoodu iyaga baabuurta kale iyo waranaya halka dhigta kuwan maxay inay wax kaareyaasha iibsanaya kuwan meelaha samaysan hor dhiganaya ta waxaa loo baahan yahay inay iska horkiciyaan wadada baneeyaan laakiin anigu bulis ahaan waxaan xaq u leenahay oo xeerka wadooyinka loo igmanaya in la ganaaxo waana la ganaaxaa habeenay maalin kale ciidanka booliska ka hadla. geesta kale waxa aanu booqanay xarunta dabdamiska ee Somaliland taasoo ay ka socdeen howlo shaqo markii aanu booqday. kani waa sarkaal ka tirsan ciidanka dabdamiska ee Somaliland waxa uu ka warramayaa sida ay dadweynuhu ula dhaqmaan markay u socdaan xaalad emergency ah. ka tahay waqtiga dabka la ogaaday waqtiga ciidanka dabdamiska la soo wacay waqtiga ciidanka dabdamiska xarunta uu ka baxay iyo waqtiga ciidanka dabdamiska uu goobta gaaray waqtiga ciidanka dabdamiska uu xakameeyay goobtii dabku ka jiray iyo waqtiga ciidanka dabdamiska uu baktiyay dabkii jiray. intaasina waxa diyaar u ah oo loo record gareeyaa waxa weeyaan marka la soo sheego dabka waxa jira shaqaale tababaran oo xisaabsan oo xisaabiya goorta dabka la soo sheegay ilaa goorta la baktiyay inta u dhaxaysaba. marka traffic jam oo kale waxa caqabado badan naga haystaa goorta dabka la gaaray si aan u gaadhno goobtii dabka caqabado badan baa na soo waajaha ay ka tahay traffic jam oo arkayno bulshadeena iyo wadooyinkeena iyo gaadiidka faraha badan leh aynu soo iibsanayno
oo runtii ay kala yar yihiin wadooyinka aynu haysano iyo gawaadhida ay wadooyinkaasi u adeegaan. labaad waxaan bulshada u darayaa marka ay dabka soo sheegayaan saynu xagga hore ku sheegnayba soo sheegitaanka dabka iyo ogaanshiyaha dabku waxay muhiim u tahay bakhtiinta dabka. marka goor hore in la ogaado goor hore la soo wacana marka ciidanka dibdemiska 990 waxay keenaysaa in goor hore lagu soo gurmido. marka markaad ugu horeyso dabka aragto waa inaad soo garaacdaa nambarka degdega, waa inaad isdejisaa si degan u hadashaa, waa inaad sheegtaa dhibaatada aad doonaysid in laga soo gurmido nooca ay tahay iyo halka ay tahay adigoo sheegaya xaafadda, adigoo sheegaya degmada, xaafadda, wadada ugu dhow ee loo soo mari karo. ciidanka dabdamiska Soomaaliland waxa uu kamid yahay ciidamada ugu shaqada badan markii la eego hay'adaha dawladda, waxa ayna markaas diyaar u yihiin inay badbaadiyaan dadka shacabka ah ee soo gaaro dabku iyo hantidooda. Cabdirashiid Ismaan Shaalco, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa. wariye Aweys Muudey boqorka bartamaha ayaa dib u helay xurriyadiisa kadib muddo 4 sano oo ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya. warkan waxa Muqdisho loogu diyaariyay Siina Ambaqaad. wariye Maxamed Aweys Muudey oo kamid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed isla markaana 4 sano xabsi ugu jiray dawladda Itoobiya ayaa maanta laga soo dejiyay airportka Muqdisho, waxaana si diiran airportka ugu soo dhaweeyay qoyskiisa, wariyaal iyo qaar kamid ah madaxda warbaahinta dalka. wariye Maxamed Aweys Muudey marka uu ka soo degay airportka Muqdisho waxa uu saxaafadda kula hadlay howlka nasashada airportka isagoona ka warbixiyay muddadii dheereed oo xabsiga ku jiray iyo wixii uu la kulmay. waxa uuna si gaar ah ugu mahad celiyay dawladda Soomaaliya. mahad gaar ah waxaan ugu celinayaa dadaalkii ay galeen asaga iyo ra'iisul wasaaraha dawaas ka taqaanayo xataa cali qayga malkana leeyahay ereyga dambaan qaadanaynaa khayr baan qaadanaynaa waayo xasan cali qayre iyo madaxweyne farmaajo isharay baa farsamadan sameeyey qarankii wax iska bedelayna hadda faa'iidadiisu aniga ay dad noo tahay. aniga maraan soo maray dawladdii gacanka ahayd waxay ahayd siyaadowna daandii aan maqli jiray, hadda khayrowna daandii ayaan taagannahay. marka waxaan leenahay khayrow adigii farmaajoba khayrka allah idin waafajiyo. qunsulka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Cabdullaahi Warfaa ayaa ka warbixiyay muddadii uu xirnaa wariye Maxamed Aweys Muudey oo loo yaqaano boqorka bartamaha iyo kaalinta dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay sidii uu xurriyadiisa dib ugu heli lahaa. maanta oo taariikhdu tahay 12 bishii 12 in aan ka soo degnay garoonka caalamiga ee Aadan Cadde International aniga iyo wariyaha wada taqaaniin ee muddada badan la sugayay Maxamed Aweys Muudey boqorka bartamaha. waxaan rabaa inaan xaqiijino dadaalkii dawladdu ay gashay ee madaxweynuhu ugu horeeyo, ra'iisul wasaaruhu uu ku xigo iyo qaybaha kale ee dawladda inuu maanta muddo dhaliyo. arrintan waxay daba taagnayd dadaal badan runtii aad u dhib badan oo loo galay maxaabiista Soomaaliyeed ee meelaha kala duwan ku xidhan ee adduunka oo Itoobiya ka mid tahay. sidaad loo wada socotaan wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ka daafurtay kulan lagu diyaarinayo istiraatiijiyadda waxbarashada iyo la tashiga dadweynaha iyo arrimaha bulshada. sida warbixinta warkan uu ku eegayo wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafurtay kulan lagu diyaarinayo istiraatiijiyadda waxbarashada iyo la tashiyada dadweynaha ee dhanka arrimaha dastuurka, waxaana kulankan uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo saakay daahfuray kulankan. xuseen cabdi cilmi ayaa sidoo kale sheegay in kulankan inta uu soconayo wax badan ay ka faa'iidi doonaan xubnaha ka soo qaybgalay. kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubno ka socda ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale xubno ka tirsan wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka dalka xuseen cabdi cilmi oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixinaya muhiimadda bulshada uu leeyahay kulankan. ayadoo dadka aan u yeernay oo shirkan loo yimid sidii talooyinkii wanaagsanaa bishii August oo isku dambeysay ay soo saarteen aan u dhameystiri lahayn istiraatiijiyadii iyo habraaci loo mari lahaa wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. mar badan aan socdo waxaan doonaynaa Ilaahay inuu yiraahdo inaad doorkiina aad qaadatiin waa idinka mahad celinaynaa inaad mataqaanaa aad
waqtigiinii iyo maskaxdiinii aad arrin qaran aad u dhalaalinaysiin oo halkan u timadeen iyo shirkaas 3 maalmood ah oo retreatkaas aqoon weydaarsi dood cilmiyeed afkaar cusub wax aan base ka dhigan karno oo bari lagu wada heshiiyo oo la wadaagna hay'adaha kala oo shaqada nala leh iyo maamulada iyo dawladda iyo madaxda sare dhammaan ay ku wada qancaan inay ka soo baxaan oo rajaynaynaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sida wanaagsan waqti badan inaan idinka qaadano ma rabno shirka inaan furno ayuu muhiimadda ahayd insha Allah shirkana waa noo furan yahay sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday kulamo muddooyinkii ugu dambeeyay ay la qaadanayeen ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale socdaalla ay ku tageen gobolada dalka taa runtii waan idinkaga mahadcelinayaa kulankaasi dad xusuusataan wuxuu ahaa 8 ilaa 10 bisha August 2017 ee la soo dhaafay waxaa ka dambeeyay kulan kale ee isugu imaadeen dad khubaro ah oo aad iyo aad u kooban wuxuuna ahaa kaliya uu ku saabsanaa sidii loo qaabeyn lahaa wixii lagu wada hadlay muxuu ahaa kulankii 8 ilaa 10 bisha August halkan ku qabanay qaabeyntii kadib sida lagu heshiiyay xilligaas kulankeenu qabanay waxay ahayd in dadkii ra'yiga lagu ururinayay qaybna ka ahaa dejinta istiraatiijiyadda waxbarashada madaniga iyo wacyigelinta bulshada سعيد عبد الداهر جوكسده warbaahinta SBC magaalada Muqdisho hagaag baan muuqaalkaas ayaa u dambeeyay guud ahaan warkii waad ka daawanayseen telefishinka caalamiga SBC wuxuu idinkaga imaanaya xarunta labaad ee TV-ga ku leeyahay magaalada Muqdisho inta warka hawada ka baxaya aniga Faadimo Cabduqaadir Xasan ayaa idin socodsiinaya hase yeeshee cidda warkeena uu seego waxay dib kaga barbaaran kartaa page-ka YouTube-ka aan ku leenahay ee SBC Somali TV aniga iyo bahda warkayga la qayb gashay waxa idin